بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، موضوع kulanku maanta waxa way sida hore loo sheegay alqabiila walqabaliya fi miisaan alislaam. qabiilka iyo qabyaalada miisaanka islaamka markii la saaro maxay yihiin way maxaa banaan maxaan ka banaanay. waa mawduuc runtii aada muhiim u ah, si ahaantiisu muhim u yahay, si gaar ahaaneedna wuxuu muhim ugu yahay bulshada aynu ka dhalanay ee luqadda aan hadda ku hadlayno ku hadasha, oo runtii la odhan karo mashaakisha maanta haysata ta ugu weyn ba waxay tahay cudurkan hadda aan doonayno insha allahu tacala wixii ilahay naga waafajiyay inaan kamid ah. si gooni aan marka inagu u baahannahay inaan uga hadalno ama isagu muujino waxay diinta ilaahay ka qabto subxaana watacaala mawduuca isaga ama arrinka isaga. waxaan jeclahay walaalayaal inaan mawduuca iska guda galo, maxaa yeele waktigaa iska yar, mawduucana aada buu guda weyn yahay. waxaan ku bilaabayaa inaan bal horta caddayno inaan caddayno waxa uu yahay mawduucani horta ahmiyadda uu leeyahay iyo diinta islaamku meesha ay iska taagtay iyo meesha uu xidhiirka la leeyahay. masale aada iyo aada muhim u ah ayuu ku xidhan yahay mawduucani, oo ah masalada la yidhaahdo mas'alat alwalaa walbaraa. waa qeyb ka mid a tawxiidka. macnaheedu waxa weeyaan yani cidda aada xidhiirinayso iyo cidda aada goynayso, ciddaad fogeynayso, ciddaad soo dhaweysanayso, ciddaad jeclaanayso iyo ciddaad nacayso, ciddaad uhiilinayso iyo ciddaad ka hiilinayso. mawduuca noocaasa qeyb ka mida weye tawxiidka ama caqiidada dadka muslimiinta ay leeyihiin, iimaanka qeyb ka mida wey. qabiilkuna wuxuu farac ka yahay ama qabaliyadda wuxuu qeyb ka noqon doonaa iyaduna mawduuca kaa hadda aan tilmaanay macnihiisu saa yahay ayuu qeyb ka noqon doonaa. waxaa rasuulkeena ka sugan sal alay wasalam min xadiidi cabdillahi bni cabbaas, sida uu soo saaray abu daawuudin adayaalisi walxaakim fi mustadrakihi, can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canh, wuxuu yihi rasuulku sal alay wasalam awsaqu cura aliimaan almuwalaatu fi llah walmucaadaatu fi llah walxubu fi llah walbugdu fi llahi caza wajal. iimaanka guntumihiisa, guntimaha iimaankii waxuu leeyahay guntimo badan oo qalbiga ku guntan. iimaanka guntimihiisa
waxa ugu adag buu nabigu sallallahu alayhi wasallam in ilaahay daraadii uu ruuxu wax u xidhiiriyo, ilaahay daraadii uu la caloobo ciduu la caloobayo, ilaahay daraadii inuu wax u jeclaado, ilaahay daraadiina uu wax u naco. waa guntimaha iimaanka midda ugu adag buu nabigu sallallahu rabbi wasallam alayhi. yani qaybaha iimaanka iyo khisaasha iimaanku wuxuu leeyahay yani noocyo badan buu leeyahay. noocyada badan ee iimaanku uu leeyahay ka ugu muhiimsan ugu adag waxa uu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inuu yahay xiriirka cidda aad la xiriirayso, cidda aad goynayso, ciddaad jeclaanayso, ciddaad necbaanayso inay ilaahay dartii noqoto subxaana watacaala. hebel waad nacday, waxaad u nacday laana ilaahay baa nacab, ama ilaahay buu ka fogeeya subxana watacaala, ama waa gaal, ama dembi buu ilaahay ka galaa, ilaahay daraadii baad u nacday. hebelna waxaad u jeclaatay laana ilaahay subxaana watacaala daacadiisu hayaa, waxa ilaahay jecel yahay buu ku dadaalayaa, waa ninkaa rabbi subxaana watacaala diintiisa u adeegaya. waxaad u jeclaanaysaa waa ilaahay darti, dana aad ku qabto maaha. arrinkaa isaga abuu nabigu ku tilmaamay sal alay wasalam iimaanka inuu yahay arrimihiisa ugu muhiimsan. xadiis kaloo isagana abu daawuud uu soo saaray fi adiyaat almukhtaara min xadiisi abi umama ayuu sidoo kale nabigu wuxu uri sal alay wasalam man axaba lilah wa abgada lilah wa acطaa lilah wa manaca lilahi faqad istakmala aliimaan. ninkii ruuxii ilaahay dartii wax u jeclaado oo ilaahay dartii wax u naca, oo wuxuu bixinaya ilaahay dartii u bixiya, oo wuxuu diidaya ilaahay dartii u diida, iimaankii buu dhamaystirtay buu nabigu sal alay wasalam. iimaankii ayuu dhamaystirtay. macnaha waxaa laga fahmayaa ruuxaan laga helin arrimaha iyaga ah oo wuxuu wax u bixiyaa ilaahay dartii maaha, wuxuu wax u nacaa ilaahay dartii maaha, wuxuu wax ku jeclaadaa ilaahay dartii maaha, ruuxaasi iimaankiisu waa dhiman yahay sida xadiiskii laga fahmay. ama iimaanba ma leh, ama iimaankiisu waa kala dhiman yahay, iimaankii dhamaystirnaa ma laha. labadaa mid kamida ayuu xadiisku ku tilmaamaya. arrinkaasi marka wuxuu inoo muujinaya walaalayaal mabda'a mabaadi'da iimaanka kamid ee asaasiyaadkiisa weliba kamid waxa weeyaan ruuxa muslimkii inuu ogaado, ruuxa mu'minkii inuu ogaado cidda uu necbaanayo iyo cidduu jeclaanayo, iyo asaaska uu wax ku necbaanayo iyo asaaska uu wax yani ku jeclaanayo. arrinkaasi marka inuu muhim yahay waxaa kutusaya iimaankiibaa qeyb kamida laga dhigay. iimaanka qeyb kamida laga dhigay. iimaankana waan ognahay waa diinta asaaskeeda, waa gundhiga, waa lafdhabarka diinta wey. ruuxaan iimaan lahayn diin ma laha. ruuxaan iimaan lahaynna jannada ilaahay xaaraan bay ka tahay. ruuxaan iimaan lahayna naarta ilahay buu ku waaraya. iimaanku waa asaaska diinta wey. asaaskii diinta qaybihiisa muhimka waxaa kamid a in aad si fiican u hufto mabda'a la yidhaahdo mabda' alwalaa walbaraa, ciddaad jeclaanayso iyo cidda aada nacayso. xadiisu anas oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen buu nabigu sal alay slam wuxuu leeyahay halaatun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan. 3 arrimood ruuxii ay dhexdiisa yihiin oo laga helo wuxuu helaa oo arrimaha 3daa ku helaa iimaanka macaankiisa buu nabigu sal alay slam. iimaanka dhadhankiisa macaan ayuu helaa 3 arrimood ruuxii laga helo. midda koowaad waxa weeyaan an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma. waa in ilaahay iyo rasuulkiisu uu ka jecel yahay wax kastoo labadooda ka soo haray. ayagu waa inay kala weyihiin wax walba, waa inuu wax walba iyaga ka jecel yahay, waa inuu wax walba iyaga ka hormarinayo. waa tilaabada koobaad. wax kastood adduunyada jecesha, haddaad xoolo jeceshahay, haddaad macnaha yani waxa weeyaan maaragtay aad yani adduunya jeceshahay, haddaad caruur jeceshahay, haddaad xaas jeceshahay, wax kasta ood jeceshahay adduunyada waa inay kaala horeyso ood ka hormariso ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh. waa qodobka koobaad. midda labaadi waxa weeyaan waa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah. waa inuu ruuxa uu jeclaanayo uu u jeclaado ilahay dartii subxaana watacaala. ma aha maslaxa naga dhexaysa, ma aha dhul baa naga dhexeeya, ma aha reer baa naga dhexeeya, ma aha dawlad baa naga dhexaysa, ma aha midab baa naga dhexeeya, yani ma aha dhalashaa naga dhexaysa. ilaahay dartii baan yaan u jeclahay.
كان معنا إلهي درتي بانو نعبه وأرنت لبادي لأن إلهي تشعيل كيسو سبحانه وتعالى أي وحا فرع كأ ما دام الله أتشعل شهي وحا أتشعل وإن التشعلات وحا أنعبيه هنا وإن النعب وحو ألا تشعله سبحانه وتعالى مثلا هذا أتشعله وإن التشعلاته فعلك أتشعله وإن التشعلاته شخصك يدك أتشعله إيه الكيسة وإن التشعلاته وهكذا هو أنعبيه هنا وإن النعب ما دام الله تشعله سبحانه وتعالى لكن الله انشعلانا يا هو النعبي هنا وانشعلانا يا وانا بقى كل من كرينه الله انشعلانا يا هو النعبي هنا وانشعلانا يا مي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الروح انشعلانا يا وانه انشعلانا اله درتي سبحانه وتعالى ذنك لو صنو انشعلانا قضى السدحات وحو يعرف السدحات وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه النعباده قال لما إنه كلاص أما إنه قالوا مبادئ قالوا قاس بغن كوضا إنه قاس أخلاق كوضا إنه قاسه وإنه أمعه سيدا أمع بيهي إن عذاب الغطور إنما أما الضبء قالوا سيدا أكره سنة أمع بيهي سلم إذا وإنه أمع بيسو إنه مبدأ قال قاس إنه بغن كوضا قاس إنه أخلاق كوضا قاس مركمت بقى في وحويان مبادئ دي يبقى دي ولا قبري النقضه midda horena waxay tilmaamaysaa ayaga laftoodii in laga bari noqdo miisaankaada wax ku jeclaanaysa wax ku nacaysana inuu yahay ilaahay dartiisa subxaanahu watacaala saddexdaa arrimood ruuxii laga helo nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam wajada bihina xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisu helaa buu nabigu yuri sal alay wasalam dhadhanka iimaanku helaa waxaa xadiiska mafhuumkiisu uu yahay saddexdaa arrimood ruuxii laga waayo ama mid kamida laga waayo inuusan iimaanka dhadhankiisa helaynin waana sida maanta dad badan haysato waxaa kaloo iyadana walaalayaal ay calaaqo weyn ula leeyahay mawduucu ahmiyadiisa waxyaabaha kutusaya waxaa ka mid a wuxuu ku xidhan yahay oo calaaqo weyn la leeyahay kelimada laa ilaha ila allah waa kelimatu tawxiid laa ilaha ila allah macnaheedu sidaynu wada naqaano waa ogolaansho waa diido iyo ogolaansho laa ilaah waa diido إلا الله وأقولش لا إله وكبر النقشه إلا الله هنا وكوليالشه لا إله واحد كبر النقنسة وحو الباء والله سبحانه وتعالى أوسر من بعد بركته بما فيهم ذاتك إذا نسو مبدأ أهين ذاتك إذا نسو الدين تأهين هذا الله نحن كقال لماذا فعل كقال لماذا لا إله إلا الله وحويان وحنكول لقنا يا الله تبارك وتعالى وحنكول لقنا يا بس إله الشعلي وحنكول لقنا يا يعني وحويان يعني حزبك الله سبحانه وتعالى وذاتك رب سبحانه وتعالى دينتي سكوتوصل بس كنكول لقنا يا وحنكول لقنا يا وأن قاضنا يا أن كل رقم يا هذا الله إلهي وشعليها أفعاشه وشعليها اعتقاداته وشعليها إلا الله معناها سيدنا كدلنا ولا زنجين معنا ساس درجة بروح اللي لها روحه حرير كيسة وضدك الله يلنيه وحديديسة كلمة اللي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الروح فهمي ومعنى هذا السلم وفهمي كنا رقمي روح إلهي نعبيه سبحانه وتعالى مرنا حرير لا يلن يعني كحد من مايو صحيح شعرية كدقن ماي أهي من ماي سورنا ويسن ماي عايلي ربي تشعيل كيف سبحانه وتعالى بقلبي كيف بوحيي ما دام إلهي أتشعلي هنا إلهي درتي وحقولنا عياعيد والبو إلهي سبحانه وتعالى حريقي في قويس صاصري معنا نبي الله إبراهيم عليه السلام أيا إلهي سبحانه وتعالى وحكو شيء يعني إنه يريد إنني براء مما تشركون يعني توحيدك وحو يعني أنا تكبري نقطه وحا أي قالوا المبادئ كان يعني إسلامك هذا لا يغلطوا إنه كبر نقطه كلية معها إن رقم كودا أخلاق كودا عقائد كودا يعني سلوكيات كودا إن بنعلم ما أي لفتوض إن المعلوم مركا يعني وحي على قد توصل كذا حيث أنا حرير توصل موضوع ولا يصير وكله كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا إله إلا الله سيدي للرب موسى تحقيق من روحه سيدي للربين وموسى إيمان إلى يضع عدي نعه
ciddii iyada rumaysanna uu walaal ka dhigto la saaxiibo oo uu garab ka dhigto oo uu yani waxa weye yani iskaashi la sameeyo oo uu soo dhawaysto laa ilaha ila allahu macnahaasay inagu laaziminaysa suurtagal maaha walaalayaal inaynu dhahno ilaahay baan jecelnahay subxaana watacaala haddana cadowgiisa jeclaano xataa waxa weeyaan yani caadatan bayna suurtagal u ahayn haddaad hebel jeceshahay hebel haddaad jeclaato wixii hebel naca waa inaad nacdo saas macna masalan yani ruuxa jecel reerkiisa qabiilkiisa ruuxa jecel oo mabda ay u tahay wixii qabiilkaaga inaad jeclaato dadka mabda ay u tahay caadatan waxaan arkaynaa wixii qabiilkooda colla ah inay nacaan ruuxa reerkiisa iyo gurigiisa ama xaaskiisa ruuxa nacab uu nici wahaakada ruuxa masalan wax kastoo jeceshahay xoolahaaga ama masaalixdaada danahaaga ruuxii nacab waa nici suurtagal maaha ruuxii adoo waxaad jeceshahay isagoo neceb haddana inaad jeclaato suurtagal maaha waxaan la kulmin karin marka allah subxaana watacaala jacaylkiisa iyo dad uu neceb yahay jacaylkooda ma kulmin karno laba mid un baan u go-aynaa ama kuwa uu neceb yahay jacaylkoodaan u go-aynaa ama meehe ilaahay jacaylkiisaan u go-aynaa laakiin labadaa kama dhaxayn karno laa tajidu qawman yu'minuuna billahi واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم مرنا مهلي في ربنا سبحانه وتعالى صرت قال ما رجع كرس إن أدهشه ضدك إلهي الرميي حق الرميي رسول كيس الرميي أيقو شعلانيا ضد الله يا رسول كيس خلافي وقرم مري ayagoo jeclaanaya marna heli maysa guur xataa ha ahaadeen caruurtooda aabbayaashood qaraabadooda xigaalkooda dadkay wada dhasheen yani nasabku ka dhexeeyey haba ahaadeen bu alla yidhi subxana watacaala kuwa ilaahay jidkiisa garab maray jacaylkooda iyo ilaahay jacaylkiisa meel laysuguma geyn karo kuwa ilaahay jidkiisa garab maray haddaad jeclaato bimacnaa ilahay baad nacday haddaad rabbigaa jeclaatana waxaad nacday wax kastoo ilahay necab yahay subxana watacala oo ilahay jidkiisa garan maray saasuu ilahayna baraya subxaana watacala saasuu ilahayna baraya suurtagal marka ma aha inaad sheegato inaad muslim tahay inaad mu'min tahay haddana walaa-aadkaaga xidhiidhkaaga jacaylkaaga xidhiidhintaada fogeyntaada inay ku salaysnaato waxaan diinta ilahi subxana watacala aan ahayn marnaba macnaha wax la garowsan karo ma ay ahay min shaacir oo carbeed baa wuxuu yihi تحب عدوي وتزعم أنني صديقك إن الحب عنك لعازب معنى هذا وحوه وحد عدوي ذاك تعشعب هذا وحد شيئا انت هنا صاحبك صاحبني وكام قمت صاحبني وكام قمت يعني تحب عدوي وتزعم أنني صديقك إن الحب أو الود عنك لعازب يعني وحو صاحبني ما إيمهيس مرزا عدوي ذاك تعشعب صاحبني إيماهيس به معنا شعيلنا إيماهيس ما كل من كرتنا علينا إستعلاء عدوي جنا شعراء صار معنا وحوي يتلمامي موضوع مركب ولا يهلك على قل ليهي هو قيب كم إذا توحيدك وقيب كم إذا إيمانك وقيب كم إذا أساسك الدين تقيب كم إذا وي ومسألة اللي هذا مسألة الولاء والبراء ورنتي وحوي فاضين تيدو أي وقت كلا يمال كلا موضوع كلا إلهي لكن كلية أن دولنا إلى المرشنة موضوع من أنكها اللي دون السيرة ووح إليه دين تأصل كذا ووصلوها هاي موضوع إسكفضت سيدو دون الروح وكي يريكا واحد كالصناع واحد كالمباح يعني ساد انت أدوغت الشنكر تماع ودين هذا كحرا عقيدة هذا كحرا آخرة هذا كحرا شنة هذا كحرا مستقبل هذا كحرا الدنيا أقربة مركينا تكهجا تسوي وضروري جدا إن تصفي عن أفهمته هذا مع ذلك وحي أتفهمت إن تصفي عن أقادته موضوع مركز لمقيم الدكاكوبين قيدي وحويان القبيلة يدي القبيل والقبلية قبيلك إيو قبلية لما معنى قبلية قبيلكو وإسكن على الشطر القبيل وحل إلى هذا ضد كوحة أو إسكن على الشعر أو إسكن هل من كوحة في السنة والقبيل إلى هذا